ilaa culimadii ay soo istaagayaanay leeyihiin ninku hadduu gabadhiisa maaragtay uu dee wax ka qaato kufsi maaha muxuu ahaa gabadhaada haddaad wax ka qaadato kufsi waa kufsi diinteennu waxay ina tiri marka gabadhaada marnaba qof bini aadana jirkiisa inaad jirkiisa miyuu leeyahay xaas adaan ku weydiinaya xaaskaaga maadaa leh miyaad leedahay xaaskaaga laba qof oo siman oo isguursaday oo nolol xalaal iyo wax qurux badan inay wadaagaan isugu yimi ma tihin mise ma tiidin horta dhaqankan iyo thaqaafadan galbeedku ay dhaqankoodii horumar iyo xadaarad inooga dhigeen ayaa waxaa inugu soo biiray nin la leeyahay xaaskiisibuu kufsaday iyadoon raalli ahayn buu waxooga iyo riixriixdayo kufsi baa laga soo qaaday xaaladdaasi waa xaalad thaqaafadan reer galbeedka iyo qawaaniintooda inoo soo deeshay ama tacliintii iyo horumarkii aan u daba fadhiisanay aynagu soo biirisay wey gabadha looma ogolo uma bannaana iyadoon cudurdaar sharci aan lahayn wax sharcan lagu garaabo iyadoon lahayn inay ninkeeda isu diiddo ma bannaana nabigeennana sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi gabdhuhu ha ogaadaane ninku xaaskiisa hadduu u baahdo oo gogoshii ugu yeedho asagay cudurdaar la-aan diiddo lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix malaa'ig baa lacanadaysa ilaa waagu ka baryo inay habeenkii ku seexato lacanad oo lacanad ku soo toosto oy habeen walba lacanad ku seexataay arrintaasi arrin mudan inay gabadha muslimkaa samaysa maaha gabadha uma bannaana oo xaaraan weeye inay sidaa samayso haddayna cudurdaar lahayn